hal abuurkayga horta marka laga hadlayo badanaa waxyaabaha fanka iyo suugaanta la xiriiro qolaba meel unbay cabdirasaaqow u badan tahay aniga maxamed ahaan waxaan aad dhinaca masraxiyadda iyo barnaamijyada jileenka iyo riwaayadaha iyo in wax la sameeyo muuqaalo ay aad badanaa ugu badan yihiin badanaa waxaan aad u curiyaa marka riwaayadaha sida kulamada ay badanaa bulshada ku kulanto kale ama xafladaha riwaayadaha la soo bandhigo oo markaas fariin lagu gudbinayo maxamed markii ugu horeysay bilowda hal abuur gorme horta cabdirasaaqow wax yar haddaan dib u noqdo aniga waxaan ka mid ahaa ardadii ugu horeysay degmadan gurcaal waxbarashada wax ka dhigan jirtay iskuulka cumar bin cabdilasiis oo ka mid ah iskuuladii ugu horeeyey waxaan kusoo barbaaray marka meelo in la qabto xaflado badanaa loo qabanayo bulshada marka xafladahaas anoo yar ayaa waxaa laga qaato cad ahaan inta la itijaabiyey koox nashiidooyin badanaa dadka u qaadi jirtay wixii waan soo waday kadib haddana waxaa la qaban jiray riwaayado markaas dadka looga wacyigelinayo jahliga dhibaatada uu leeyahay iyo qabyaaladda xumaanteedii waxyaaba barnaamijyada noocaas wixii saan u daawanayay adiga haddana waxaan kusoo gaaray heer aan marka dambe waxbarashadii gabagaba ku gaaro markii aan ku jiray iskuulkii iigu dambeeyey ayaan waxaan sameeyey riwaayad la yidhaahdo qorshe qabiil iyo khasaare ganacsi oo ahayd riwaayaddii ugu horreysay ee aan sameeyo noqotana mid ka mid ah riwaayadihii ugu saameynta badnaa oo ilaa iyo xataa Kampala mar aan jaamacad u aaday aan ayadana ka sameeyay oo arday graduation qabanaysay aan u sameeyay marka riwaayadda waxay ka hadlaysaa dhibaatada ay leedahay in marka aad business sameynayso ama ganacsi sameynaysid aad qofka shaqaalaha ah ee ku shaqeynaya aad ku qaadatid waa in adeerkay marka qisadaas asal waxay ka timid dukaan ku yaala magaalada dhexdiisa ayaan waxaan ka doontay inaan wax ka iibsado kadib waxaan ku iri shayga si soo qabo markaas uu igu yiri ka tarabta xataa ma yaqaan qofka marka aan dukaanka joogay ma garanay xataa shayga aan sheegayo magaca aan sheegayo meesha ku yaala markaas uu yiri ka tarabta markaas aan ku iri ka waa tilmaamad ugu bacda shida wa tacab waa tilmaamay ka isi oo ii keenay marka ii keenay waxaan ku iri waa meeq markaas uu yiri warniyo waxa aad awal batanaantay waxa la baxay la baxay marka inna lacagta doonto bixi marka waxay cadeynaysaa marka in uu yahay nin lagu keenay qabiilaysan oo ana wiilkan hadii aan qarash bixinayo aan wiilkan adeerku ahay miiga jira aan siiyo marka waxba igama gelin ninka ardayga ah ama jaamacad dhigtay ama iskuul dhameeyay ama xisaabta yaqaan ama computerized accounting yaqaan sida wax loo bartay yaqaan ama wax ii xisaabi kara waxba igama gelin marka waa riwaayad dhowr dhinacyo badan taabanayso nin reer miyiga badilay keenaya ka hadlaysa waa riwaayad ka hadlaysa nin ganacsada oo aan fahansanin qiimaha dadka wax bartay leeyihiin waa riwaayad ka hadlaysa indha adeeg oo sameeynaya ninkan dukaanka joogaahay oo ah inta shay qiimo leh loo dhiibay uu leeyahay wareer mana cusle bal inta la bixi karta la baxay macna culinta lagu qiimeynaa raiskiisa ku qiimeynaa marka riwaayadaas ay riwaayadii iigu horreeyay ee aan sameeyay Kampala mar labaad ayaan graduation loo qabanayay arday Galmudug State ka soo jeeday ayuu dhahan Maxamed riwaayad noo sameeyay marka waxaan iri maadaama waxa laga hadlayaa ay arday yihiin haddana ardadaas ay yihiin arday baratay maadooyinka maamulka la xiriira ama ganacsiga noqota ama public admin ka noqotay arday baratay ay yihiin caqabadaha ardada Soomaalida haystaan ay u badan yihiin in markii waxbarashada dhameeyaan aysan helin fursado shaqo haddii la helana fursadaha shaqo ay noqdaan kuwo ku salaysan qabyaalad marka waxaan sameeyay riwaayad la yiraahdo qorshe qabiil iyo khasaare ganacsi inaad wax ku qorsheydid si qabiilaysan taasoo mustaqbalka saameynaysa ganacsigaad inuu guuleysto caqabad ka noqonaysa dhalinyaradiina ka hor keenaysa ayagana waa laba shay isu baahan oo isweysan ninka aqoon-yahanka ah ganacsigu u baahan yahay inuu keeno ninka businessman-ka inuu u baahan yahay inuu helo qof aqoon leh oo businesska wada marka waa laba isu baahan haddana aan is helin sababtan waxa iska leh qabyaaladda oo in la isticmaalo taas keenaysa waa gartay riwaayadaha marka ma sidaas sheegto oo kale arrimo waxaad uga hadashaa ganacsi oo la xiriira horta maxaad uga hadashaa badanaa riwaayadaha waa su'aal wanaagsan Cabdirasaaq oo maadsantahay badanaa markaan magaalada ku dhex jirno ama waxa la yaabto bad arki adoo magaalada ku dhex jirada harka shay warka shaqadan waxaan san kuma habboonayn ama waa mala awaal ahaan waxba isaga soo ka dhacay mararka qaar waxaad arkaysaa maskaxdaada oo iyada ruuxeedii waxa asaasada u leeyahay waxaas ugu waa problem bulshada haysta haddii riwaayadaha qaarkood waa kuwo dareen ahaan bulshada dhexdeeda ka dhacay oo problem jira ama dhibaato jirta markaas aragtay baad uga hadlay hadda qabyaalada kale waxaan ka sameeyay riwaayad yiraahdo waa qalama riwaayad yiraahdo waa qalama waxay ka kooban tahay qaybo kala duwan oo aan leeyahay dhinaca hal hebela waxa isku guuleystay ama qof Soomaali ah heerkaas gaar ah leeyahay su'aasha ugu horeyso qofka ku weydiinaya marka Soomaalida ma ahan badana waa loo badan yahay laakiin waa qalama
markaas riwaayadda waxaa ka mid ah marka nin su-aashiisu ay tahay waxaa leeyahay maalin heblaaya waxaas la qabtay qof Soomaaliya saas yeela soo warniyo waxaan ku weydiiyay ninkaas waa qalamo wixii la sheegaba waa qalamo marka riwaayadaas waxaan ka sameeyay qabyaalada oo Soomaalidu ay aadka isticmaalaan ahna dabcan waxyaabaha dhibaatada weyn iyo burburka iyo waxaan hadda aan ku jirno qorto noo geliyay marka waxay u badan tahay su-aashaas markaan usoo raabto inay tahay waxyaabo badanaa jiro oo bulshada haysta oo dhibaato ah inta la yimid la yiraahdo maxamed waxaas ka hadal intaan fikro qalinkeed bog isdul saar cabdisaqo ima dhibto badanaa hadda ardada markaan hadda Uganda joogo kale jaamacadda dhiganay aad iigu ma jiraan xidhi jireen maxamedkii xafladaha la qabanay ay dhigi jireen maxamedow ciwaankaas nooga sameey intaan sameeyaan marka haddana waxaan isticmaali jiray inaan raadiyo haddana dadkii marka ugu horreysay ciwaankaan sameeyaa waxaan ku xujiyaa haddana dadkii ka qayb gali lahaa waxaan leeyahay actorkii riwaayadda qofkii heblaayo hooyadii aabihii waxaa la rabaa in bulshadu xataa ciyaalka xaafadda in iska dhex arkaan oo riwaayadda ay noqoto riwaayad muujinaysa bulshadii dhan haddii laakiin hal dhinac loo badiyo waxay noqonaysaa caqabad midii ugu horreysay oo jirnay oo Kampala ka jirnay ayaa waxay noqotay midii ugu hidsanayd oo reer Kampala kale ay aad ku xiiseeyeen muuqaaladeeda markaa daawatay aad u yaabis oo gartay marka maxamedow qaar kale oo inta soo noo sheegtay maahan ma jiraan oo dadka xiise geliyay ama qosol leh ama wax kale ka tarjumay cabdisaqo horta way badan yihiin riwaayaduhu kuwa waxaa jira hadda aan sameeyay laakiin aan weli jilin helin oo ciwaanada ay sameeyeen marka xataa ciwaanka maqasho aad qoslayso kuwa aan hore u sameeynay oo aan jilnay jira kuwa xataa waxaa jira YouTube ka kala had gashay aad helayso sida riwaayad la igu sawir oo xataa markii dambe la siyaasadeeyay oo YouTube ka dad gashay dadka soo arkaysaa channel regular raadi ku jirta badanaa waan gelinay marka riwaayadaas dib laga siyaasadeeyay oo xataa markaan soo dhigno waxa loo qaatay inaan dawladii xilliga dawladii ay bilowga ahayd soo dhignay intaan xataa barnaamijyadka igu sawirka la sameeyay anigu waxaan ka hadlaynay qof caawin u baahan inta la kor istaago leeyahay igu sawir waxaan ka hadlaynay abaaraha kale xilliyadaas abaaraha jiray marka waxaan ka hadlaynay wati madaxweynuhu uu markaa dhahay musiibo qaran jirta xilliyadaas waxaan ka hadlaynay marka dadka baahan inta loo tago isku soo kar sawir leeyahay dad baahan soo aragnay aan la caawin aan leenahay dadka inta la isku sawiri lahaa oo muuqaal inta laga soo duubo dad kale loo diri lahaa adinku waxaad haysan siiya marka halkaas aan hadlayna laakiin dib laga siyaasaday waxa la yiri nimo bahasha dawladda u rajeedeen marka waa badan yihiin riwaayaduhu iyo waxaa jirta riwaayadaas hadda aan ku sheegayo qorshe qabiil iyo khasaare ganacsi riwaayad kale oo la yiraahdo midownaya ma sii wadnaa oo ayadana aan u sameeyay SSU Somali Students Union oo Uganda ka dhisan oo markii hore ardaydu intay xoogaa waa iska taqaanay state-kii dhibaatada oo keenay ayaa musiibo noqday kadib haddana waa la isku yimid waa la midoobay markii la midoobay waxay dhaheen maxamed wax noo sameey markaas waxaan iri riwaayadana idin sameeyay midownay ma sii wadnaa la yiraahdo oo ka hadlaysa muhiimadda ay leedahay awoodda iyo midnimada muhiimadda ay leedahay oo aan u sameeyay aan ku jirayo sheeko ma maqli jirtay odaygii 7 wiil dhalay la daarmaayay laha mandisku la daarmaayay mid walba uu soo qaato uu leeyahay mid walba usha haya jabiyo haddana uu leeyahay usha hal isku xiro marka la isku xiro haddana uu leeyahay usha jabiyo la jabi weynayo ku dhahay haddaad isku tagtaan isku tag awooddaas uu leeyahay haddaad kala tagtaan kala tag waa daciifnimo iyo dulinimo marka taas ka mid ah waxa ka mid ah riwaayad yiraahdo asal guurka af Soomaaliga ee xisaabaha maanta marka waa caqabad jirta oo baahan xalin oo ah in af Soomaaliga maanta qoraal ahaan marka la qorayo dhibaato ka taagan dhawaaq ahaan marka lagu dhawaaqayo dhibaato ka taagan marka wuxuu leeyahay waad aragtay hadda marka xataa haween wanaagsan qof waxaan ku dhaho haween wanaagsan markaas uu leeyahay haween wanaagsan marka qoraalkiina waa qaldan yahay dhawaaqina waa qaldan yahay marka wuxuu leeyahay asal guurka waa af Soomaaliga haddaan hadda la qaban asalkiisa dhama dhumayo marka iyo hasaabaha maanta iyo qaabka maanta loo hasaawiyo kii hore marka waa ayad ruuxeeda riwaayada hadii la sii tilmaamo waxaan ku jileynaa gabar mudug malaha ka timid iyo gobolada dhaxo magaalo tagtay oo rabta inay hasaawo ninba mar u imaanay mid isruuxaya ciyaalka xafado labada farad taagan u imaanay uu leeyahay yartahay iyo markaas la warhaadhan iyo kan mawaalay walaal horta bal adigu geesiga marka waa sheeko dheer wax hadda la soo koobi karo ma laakiin taas ka mid ah waxa ka mid ah riwaayad kale oo la yiraahdo ma dhignaa mise waa dhisnaa tan lama jirin wali ma dhignaa mise waa dhisnaa markaan dhawaq ahaan dhaho waxaad leedahay macnaheedu ma fahmi doonto laakiin markaan ka dhawaajiyo soo ila socota waliba inaad la yaab doontaan ma dhignaa mise waa dhisnaa waxaan ugu talagalay riwaayadan in madaxda Soomaalidu badankood ay ku mashquuleen dhagax dhig inta dhismaha la sameeyay lahaa markaan waxaan dhagaxan la suudo la dhigayo war yaan la dhigin hala dhiso
yaan bal laga tagin Haye. inta lagu bixi lahaa madax soo dhaweynta war madaxda soo dhaweey madaxda hala keeno madaxweynaha dhagax dhigay qarashkaas madaxweynaha lagu keenay iyo dhagax dhigaas iyo ummadaas imaanaysa baabuurtaas shidaalkaas iyo energyas baxaayo dhan ha lagu bixiyaba in dhismihii la sameeyo yaan laga tagin ba dhagaxan yaa la dhigin hala dhiso Haye. marka waxaan iri ma dhignaa mise waa dhisnaa Haye. oo labada isma qaadanayaan saqaadaya Haye. dhagax marka yaana dhigin Haye. aan dhisno waa su'aal macnaha taagan su'aal taagan waayo ka jawaabid u baahan marka dhagax yaana dhigin aan dhisno waayo marka waxaan leeyahay marka yaan taasna waa taas riwaayad kale ayadana waxaa jirtay riwaayad kale oo la yiraahdo aad u khasal badan markaan miigi badan ka hadlay maadaama aanu regoolada dhaxaa iska ahaay dhinaca miiga ku soo barbaaray markaan miiga aad ku hadlay waxaa la yiri warniyow magaaladii ma ka hadashay Haye. markaas waxaan sameeyay riwaayad la yiraahdo bitihi bidaarta ahaa biisihi bitihi bidaarta ahaa cabdishaaq waa taqaanaa jikinka iyo jibsiga Haye. dadka dhalinyarada badana reer muqdisho iyo dadka kale ee wadamadaas East Africa jooga aad u yaqaanaan Haye. marka biitsahaas badana gabadha markaad xasaabaha sameysaan waxa ugu horeeya ku weydiin doontaa waxa waxay ku leedahay nin nabadiyo jikin iyo jibsi Haye. iyo biitsa aan doonano Haye. marka wuxuu leeyahay nin gobolada dhexe ka yimid wuxuu tagaa meelaha adigu bahasha laga isticmaalo biisi cabaar uu jooga magaaladii fahmayo maalin walba waxa lagu yiraa biitsa Haye. warniyo biitsa cunayna biitsa war biitsana si biitsa waa macaan war waa macaan waa soo cunay maalinta buu wuxuu yiri ma caaw horta bal aan wuxuu yiri waxbaad sheegteen dhaxad sheegteen caaw aan ka war doono Haye. intii waa baxa oo maqaayad Jafes la geeyo oo maqaayadaha casriga kamid ah maqaayad dugtiyo dalabkii loo keenay Haye. gabadha marka waxay ku tiri dalabkan take away hana looga dhigo oo xaafadan qaadanayna kadib waa loo soo xiray wuxuu yiri inta loo habeeyaa xaafada loo qaatay weedadka xaafada alaabta la geeyay xaafada marka alaabta la geeyay kadib wuxuu yiri niyahow guriga soo noqonaya balarta noo sii diyaari bahash sax noogu soo shub gabadha marka gabadha ciyaalka xaafada ay waxay istiri biisu ninkan kuwala ma filin waxay istiri biitsahan yarka ah ninkan kuwala ma filin waa nin iska rirbaadiyahay baalka si waxyaal marka wuxuu ka kooban yahay bur hoose iyo kor oo jikinkii iyo qudaar iyo wax la isku dardaray aad ka qaybtu macaan korkay saaran tahay hoosna burkiya jira marka qaybta kore ee macaan ay ka cuntay markaas ay sidii bidaarti maartay inta hareeraha ugu harto ay gees hareeraha in yar oo macaan ku sarata dhexdana burki iyo cad iyo intii kale soo rar markaas ninka dhow yimid saacad soo diyaariyay wuxuu soo caawa cashada cuni doonto dhaxa biisa la sheegay caawa horta bal warso si wuxuu u yimid balgii dhexdi line yar sida qofka bidaarta ay geesaha oo uga diiran tahay ay dhexdina ka cadahay bur caadi ah dhexda un tin wax yar geesaha ku leh oo u yimid burkii hada waxa sheegaydan ma waxana xadna ugu soo lugeeyay waxa arkaan qarashka matana ka bixin way qasaarday ninka xanaaq waa iska tagayo xaafadii ku noqday qofkii biisa magaciisa sheegay bura iga xigooyaan bisha waxaan u lahayn agama dhaxayaan shaqadii waa socotay ninkii adigu cabaar soo joogo magaalada si fahmayo bajaaj gatay cabaar joogo ayaa inta dambe maalmaha kamida meelaha sikadiisa loo kulmay biisa caadiya alsi ama aan وعادي geesta laga cuno bidaar lahayn gabadha qiyaanada la kii bidaarta lahayd kii cunayo waa macaanaade marka inta soo tagayo gabadhi u yimid dhowr sano kadib wuxuu ku yiri hay biisa bidaaray waa lagu fahmay marka waxaa jirtay riwaayad kale la yiraahdo iyadana tala waalid iyo taakulaha weyn oo anagu hadlaaya dad markii burburkii dalku dhacay waxa ugu badan ee lagu badbaadiyay inay yihiin waalidka tiradiisa iyo taakulada haweenka oo ah badana dhalinyarada wax barata markaad wareysatid anigu tiraahdo riyaa wax bara walaashii dibadda jirta hooyadii halkaas ku maqan en xaaskii lagama fogaado wax ugu badan xataa abaarihii dalka markay dhaceen wax caawinay xataa dalka gudihiisa markii aabayaashii dagaaladii ama qaarkood ku dhinteen ama qaxeen oo la wareeray wax tiray dadka oo hagaajinayay waxay ahayd marka taas waxaan uga hadlayay awoodda ay leeyihiin dumarku iyo siday dalka wax u tareen aqoonyahan tahriib ah iyo ummad u aaman waa riwaayad kale marka riwaayaduhu waa badnaayeen kuwaas kuwa kale ma kala xasuusta waayahay maxamedow marka dadka jila riwaayadahaaga ma koox samaysanba mise qof walba ayaa jileen ka qayb qaata oo adiga aad dooqato cabdishaaq horta ayadana waa mid kale oo meesha ku jirta samaynta waa wey oo inaad samaysid riwaayad ciwaanka samaysid wixii curidid la keeno waa qaab sida loo jil lahaa inaad samaysid ayadana waa qayb kale dadka jil lahaa inaad xelatid ayadana waa qayb kale waa waxa marka la kala saaro la yiraahdo hebela qoray hebela riwaayadan curiyay hebela taas sameeyay marka anigu hadana taas oo kale marka laga hadlo qofka marka fiiriyaba marka koobaad taas marka u fiirsho waxaan leeyahay qofkan wax waa jili kara qofka la fiirsho waxa la leeyahay ninkaan hay igu goynine dad kortooda u ceebayna iga daay waxa kale ka fogaada badanaa
riwaayadaha waxaan aad u jeclahay inaan soo gelino waxa dadku ay ku qoslaan haddana qosol kaliya lama rabe ay yeelato fariin ay fariin gudbido haddii uun iska qosla wixii dhalin badan dhalinyaro waxay gudbi jireen maxamed wax lagu qoslaan rabnaa markaas waxaan gudbi jiray hada qosolka kaliya muhiim maahane aan dadka fariin u reebno oo aan fariin gudbino in la qoslo waxa ka muhiimsan walba aan labada isku darno marka waxaan sameyn jiray riwaayad qosolna leh fariinna leh marka dhalinyarada badan qofka markaas soo fiirshaba hore ka soo saari jiray hadda nin Cabdirasaaq la yiraahdo sawirrada kale hadda dad aragtid oo markii uu jiray riwaayadaha in aad u la yaabayso iyo dhalinyaro kala fara badan ayagana markaa saas qofku u fiirsho waxaan leeyahay laba eray dheh markuu yiraahdo qofku waxaan leeyahay saas dheh qofku waxaan rabaa hadana markaad wax jilaysid sida inay dhab yihiin lama rabo inaad iska soo istaagtay dadka hortooda ku qosasho lama rabo inaad ismurmurugeed lama rabo wax markaad jiray hadii wixii ay naxdin ku jirto inaad naxdin dejisid waay hadii jacayl ku jiro inaad jacayl samaysid waay hadii farxad ku jirto inaad farxatid waay hadii qosol ku jiro inaad qosashid waay waxaan rabaa macnaha wax aad jiraysid in sidii ay yihiin u kaanto marka haddii qofku hadduu cabsado ama caqabad noqonay marka badana waxaan sameey jiray dhalinyarada hal ii keenan dhihi jiray qaar aan aqaanayna waa jireen kooxna ma aanan ahayn koox gaar ma aanan ahayn laakiin waxaan ahayn dhalinyaro jaamacadeed oo iskaashatay isku tagtay go'aansatay inay dadka wax u qabtaan aniguna marka dadku yimaadeen kuma xiri jirin shardi aan ku darsaday farintaasi wiila iimado wuxuu yiri maxamedow waxaan rabnaa aad barnaamij noo samayso oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo jaamacad KU la yiraahdo Kampala University Kampala ku taala ayaa waxay ka qayb galayeen barnaamij oo loogu talagalay dhaqamada dalalka looga hadlay barnaamijkii markii waxa la yiraahdaa laga qayb galo aniga waxaan markaa fikiraan qaba dhaanto iyo barnaamijyada la soo bandhigay waxaan aan ka dayno music dhaantooyinkan music gale oo wax casri ah waxaan aan ka dayno aan riwaayado iyo barnaamijyada noocaas ah sameeyno iyo sidoo kale dhaantadii oo aan music lahayn iyo barnaamijyo noocaas aan sameeyno waxay noqotay in lagu guuleysto waliba kaalinta labaad ay ku soo baxaan awalna xid jiraan 25 waxay noqotay marka awood weyn maalin kadib ay yimaadeen waxay dhahan maxamed waa nolol shaqeeyo waxaan rabnaa inaan ku abaal marin lacagta waxaan ku aniga awood ilaahay uu siiyay lacag kuma iibsanay badana shardi kuma xiri jireen dhalinyarada badana isteediyada ka marka wax qabsanaya ama dhalinyarada jaamacadaha kale wax sameynaya ama xafladada qaban iimaa jireen lacag kuma xiri jireen shardi kuma xiri jireen waxaan dhigi jiray waxa aad iga rabtaan waqti fiican kaliya haddii barnaamijkii caawa qabanaya ay tira hadda sameey ma sameyn karo marka waxaan dhigi jiray xilli hore ugu yaraan waxaan dhigi jiray hal isbuuc si waan ciwaan ku soo sameeyo ku soo hadana ku celiyo hadana hubiyo meelaha qaldan ka soo koob hal ramo mid kale waqtiga in la koob hadii wax iska dheeraadaan faa'iido ma leh wax yar oo kooban oo tayo leh oo qosol leh oo macnana lahaado marka saasan badana ku jiray waa gartay maxamed xagee marka badana dadka u marsiisaa fariimahan ma meelo kala duwan oo ay ku kulmaan sidee loo baahiyaa horta cabdirsaaq waran waa su'aal meesha ku jirta badana riwaayadaha aan sameeyno waxay ku saleysnaayeen cabdirsaaq waxay ku saleysnaayeen barnaamij masrax caadi ah oo badana xafladaha jaamacadaha kala dhalinyarada markay qabsanayaan kuwa caadi ah oo midowga ardada kale ay qabanayaan oo xaflad inta la qabto stage caadi ah intaan soo fuulno dadkii jooga aan hortooda ku jirayna riwaayad live ma ahayn wax intaan soo duubnaan ama aan flash inta ku soo ridna aan gashanayna ma ahayn intaan soo duubno loo diyaariyo mikrofoonadna la siiyo aan dadka hortooda ku jirayna anaga laakiin badan waxa waqti ku bixi jirnay inaan kulanno wixii soo practice gareyno hubino ku celino practice gareyno ku celino kadib markay uu saxanto aan dadka soo horkeen dadka markaas aan isleenahay oo kale intaas barnaamij marka marin qofka aan isniraahno qofkaani ma qaban karo waa ka saari jirnay handi jirnay qofkaan aan iska reebno qof kale ku bedeli jirnay waa hubi jirnay waxaan isku dari jirnay inay noqoto riwaayad dadka daawanayana ay caajiska ka saarto fariin gudbida mid kalan ku weydiinaya maxamedow hal abuurnimadan ma waxa adiga kugu koobba mise dhaxal bad u haysataa oo qoyskaaga ayaa laga yaabaa inay ka soo gaartay cabdirsaaq waa su'aal muhiim ah runtii meesha ku jirta aniga awowgay wuxuu ahaa nin abwaan ah oo gobolkan galguduud caanka ahaa maxamed raaga maxamuud la dhihi jiray wuxuu ahaa nin abwaan weyn oo caan ah gabayo fara badan tiriyey hadda waxaa i qorshaysan hadduu ilaahay yiraahdo inaan gabayadiisii qaar ka mid ah insha Allah aan qoro ama aan wada qoraba dhamaan ama xataa abwaaninta gobolada dhexe dhan gabayadoodii inta ka gaari karo aan wixii aan qori karo leen waxa hara mar walba waa buugaas formadaas in dhaxalka jiilba jiil si gaarsiinay taas waa marka awoo kale uu gabi jiray in abwaan ahaa aabbo kale uu gabi jiray laakiin anu maxamed ahaan dhinac gabayga kuma badni waxaan hadda badana aan ku fiicanahay waa barnaamijyada masraxiyada badana dhalinyaradu markay arkaan hadda xilligan la joogo waxay dhahaan ma abwaanka marka waxaan ku waraniga abwaan maay nin barnaamijyadaas iyo riwaayadaha iyo waxyaabaha uu sameeyanahay
marka gabayo badan oo caan ahaayuu lahaa abwaan maxamed raagi maxamuud mar uu ka hadlayay haddaan wax un kaaga sheegay gabayadiisii geenyo uu lahaa oo ka dhintay ama ka dhimatay oo niman adeeryaalkiisa intuu tegay dhihi rabo geenyadii bedelka dhibaatadii ku dhacday warba inuu ka hadlo u sheego ayuu wuxuu yidhi wuxuu marka samaynayaa tusaale kadibna wuxuu u dhacayaa dulucdi markaas wuxuu leeyahay sida mayran gabar aabaheed mara u weyneeyey ee waca la miyir beeshay ee lagu madeexayo wuxuu yidhi sida mayran gabar aabaheed mara u weyneeyey ee waca la miyir beeshay ee lagu madeexayo ee wiilkii mawlaha la tumay miidda ku ogaaday madoobaadii ee xalay mii mira talaabteed sida wiil hantida ma-wiya lagu mahibsiiyey ee lo-da iyo geelaba magacyo loo yeelay ee meherka naagaha xubbiga meel u qaban waayey madoobaadii ee xalay mii mira talaabteed wuxuu leeyahay sida ninay maraakiib badweyn kula dhex miiraartay ee moolka sii marahaya madax hooseeyo ee maal ha sheegna naftii laga maqnaa waayey ee kolkaas inuusan moodayn maanka ka ogaaday madoobaadii ee xalay mii mira talaabteed wuxuu leeyahay marka usoo wada tusaalayaal usoo samaynayo wuxuu leeyahay xalay baa hurdada laiga xiray xindhaxaadkii waan lay xafidinoo gad baan laigu xaabayna xaniyaha in laga xooray baan xaaladiisa ahayn neefkii xaraga fuul fardood waa la xaal baray ayadoo xashaash lagu wadan la xiddi dhaafinin meeshii ay ku xood midabaan soo xasuus garanay marka nin abwaana maahi laakiin waxaan dareensanahay in aabbe iyo awowba labadoodaba laba nin gabiyaaya waayahay maxamedow maxay kugu qaadatay inaad nin hal abuura noqoto oo aad riwaayadaha sida loo jelayo aad hal abuurkooda yeelato maxay kugu qaadatay cabdirasaaqow horta san bilowga ku sheegaba waraysiga waxay ahayd wax ka bilowday yaraantii xilligaan iskuulka dhiganay ilaa ay ka gaartay ilaa jaamacaddii hadba meeran marka marayay hadda muuqaaladii mar anoo yaro nashiidooyin iyo muuqaal qaaday aniga ruuxayga nashiidada qaadaya xawacad ahaan la ii soo xiray iskuulkan xawaa yaro cod fiicnaa iyo mar anoo wax jilaya mar anoo riwaayad anigu aan sameeyey director garanaya marka hadba meel intaan yaraayon soo korayayba aan ku dhex jiray marka mar walba waxaad moodaa in cilmi iyo wax un ay isii korayeen oo khibrad ahaan ay wax isii kordhayeen maxamed adiga jilliinka riwaayadaha aada curiso ma ka qayb qaadataa haa si fiican waa ka qayb qaataa weliba xataa mararka qaar qofka aad rabtid inaad waxaan ciwaankan hadda tusaale kale riwaayadan aqoon-yahan tahriib ah iyo ummad u ooman markaan ciwaanka sameeya waxaa la riwaayad ciwaankeeda waxaana la yidhaha waxaa ka qayb galaya aabe hooya ku jirto aabuhu magacaas uu leeyahay hooyadu magacaasay leedahay waxaa ku jira nin saas oo aqoon-yahan oo tahriiba meeshaasuu aadaa marka wix markaan dad ka dhaadhiciyo qof walba waxaa la noocaas uu jiraa eragaasuu dhahaa meeshaasuu kasoo gelaa haddii marka aniga aanan jilin maba ku dhiiranayaan ayaga inay jiraan marka aniga badanaa waa jiri jiray riwaayadaha badi waan ka qayb qaatay aadan uga qayb qaadan jiray weliba dhinaca jileenka boqolkiiba boqolan ah malihi laakiin un ilaa xad waan jiri jiray imise sano ayaad arrimahan curinta riwaayadaha ku jirtaa laga bilaabo markaan jiray 14 sano ilaa iyo hadda oo aan 27 jir ahay intaas oo dhan jileenka waan ku jiray waan waday maxaa marka intaasoo sano isbedelaya oo dhanka curintaada maskaxiyan ama waxa aad soo bandhigaysa tayadooda maxaa isbedelaya cabdirasaaq horta mar waan yaray oo anaa jilayay oo inta la itusaal dhahay saan u samay mar intaan nashiidooyin wax liidii baa dhahay halkan ka bax hadba waxyaabaha kaloon meeshaas ka barta waxaa ka mid ah in isku dhexyaaca markaad bulsho ka hor hadlayso sidoo kale hadda aniga kun qof haddii la horgeeyo dhib iguma hayso anoo qaslayo un baan sii galay xataa waxaan kaloon bartay khibrad kale oo ah in dadka markaas wax ila jiraya aan ku iraahdo hawlwelinina anaa idin sheegaya qaabka ugu fudud ee aad uga guuri kartaan yaxya dadka hortiisa markii la tago marka anoo yaraa la tababaray barnaamijka la geeyay hadda meelaan soo gaaray maskax ahaanan u koray cilmi ahaanan u koray waxbaan bartay iskuulka dugsiran dhameeyey jaamacadan dhameeyey haddana mar kale masterki dhameeyey marka hadda meelay sii maraysay ilaa iyo hadda oo aan weli riwaayadaha qaar aan la jirinay ku jira hadda riwaayadan aan ku sheegay hadday riwaayadan aan ku sheegay ahayd ma dhignaa mise waa dhisnaa adugu nin madax nin mas-uul ah ayaa wuxuu sameeyey ugu yaraan 30 dhagax dhig hal safar oo uu sameeyey kaliya ayuu wuxuu ku sameeyey ugu yaraan dad wax wada heblaayo dhagax dhig mid heblaayo warshad heblaayo dhagax dhig mid heblaayo halkaas laga dhagax dhig wixii inta isku xisaabiyay wixii la noqday waxaad ka badan waxaan idhi budget ahaan qarashkan la keeni karaa war waxaan is qaban karaa markaas waxaan idhi waxa ka habooneedba intaas oo qarash lagu bixinayay safarkii iyo soo dhaweeyay iyo wala dhagax furkii wax ka habooneed
in marka waa riwaayad aan ugu talagalay inaan madaxda ku xasuusiyo inay ka habboon tahay intii la dhihi lahaa waa la dhagax dhigay in dhagaxa aan la dhigin la dhisaba intaas waa banaan marka taasoo kale weli lama jirin waan ahaan waan sameeyay waana waxay ahayd intaan fiirshay maskax xaaliga bata waxaan wallahi waxaan waxay u baahan yihiin in bulshada la gaarsiiyo laga hadlo dhibaatadooda markaan dhibkii arko un baan waxaan jiraa waxaan in laga hadlo u baahan yihiin oo in wax laga sameeyo u baahan yihiin waa gartay maxamedow marka maalmaha ciidda oo kale hadda noo soo dhow maxaad hal abuurnimo ugu talagasheen ood is leedahay dadka lagu madaali karaa cabdirsaaq horta waa su-aal aanan ku tashanayn laakiin waxaan is leeyahay haddii mar ciid ay tahay waxa laga hadli karaa waa un farxad waxa laga hadli karaa waxaan is leeyahay haddii mar ciid laga hadlayo waxa laga hadli karaa waa un bulshada farxad iyo qosol inay helaan ciiddaas ay ku farxaan marka labadaas topic uun dhaafi mayso in bulshadii ayna farxad hesho mar haddii la qoslana farxaddu waa ka dhalanaya hadduu qofku qoslo farxaddu waa iska imaanaya marka maadaama ay maalmo ciid tahay farxadna tahay labadaas un in la horay barnaamijyadan ciidda horay hal abuurnimo ama waxaad hore usoo samaysay ama uga qayb qaadatay ma jiraan barnaamijyadka ciidda maya weli barnaamijyadka ma aana samayn laakiin way jiraan dhalinyaro hadda gobolka soo jeeday igu tiri mar aan ciidda bandhig qabano marka waxaan ku iri waayo sukaana keena waxaan un xoogga saaraynaa wixii sidii aan dadka ugu qosli lahayn waxaan xoogga saaraynaa sidii aan dadki ugu qosli lahayn marka waxaan ku fakerayn inaan u diyaarino riwaayad u badan qosol iyo sheeko iyo xamaasad badanaa bulshadii iska wada dhex arki karto ninka reer miyiga ahaa uu ku jiro hooyadii ay ku jirto aabihii ku jiro mid wixii dhamma ay ku jiraan oo bulshadii dhammeed ay ku dhamaystirin badanaa riwaayadaha aan sameeyahay waa isku miisaaman yihiin bulshadii dhammeed ama haween ha noqoto ama rag ha noqoto ama dhalinyaro ha noqoto ama carruur ha noqoto inay wada matasho oo ku wada qof walba meesha fadhiya oo iska dhex arko qof matala oo saasaan badanaa xog ku saari jiro waa gartay maxamed haddaan dib ugu noqdo qaybtii dhexe waraysiga ma jiraan riwaayado marka laga soo tago maslaxa ama toos aad dadka usoo hor istaagtaan aad halkaas ku jishaan kuwa la duubo kadib dadka loo soo bandhigo qaabkaas ma isticmaashaan cabdirsaaq barnaamijkaas waan ku fikirnay hadda ka hor inaan sameyno weliba wiilo dhalinyaro oo qolooyinka warbaahinta ka shaqeeya mar iyo midoobe dhahaniyo riwaayadahaas aan sameyno weliba riwaayadan bitsihii bidaarta oo ahayd riwaayad markan qofka u sharxaa uu ku qoslo marka waxaan ku iri sukaana keena marka wax walba la sameynayana waxay u baahan yihiin qarash waxay u baahan yihiin waqti waxay u baahan yihiin qalab intaas buu u baahan yahay dad farsamo yaqaana ah oo sameyn kara marka waxaan ku iri waxaan rabnaa iyo dadkii dabcan waa man powerka waa kan ugu muhiimsan awoodda bini aadamku waa tan ugu muhiimsan wax walba sameynaysa ama farsamaha ku qabto ama wax ku jiro ama wax ku sameeyo waa meesha ugu muhiimsan aad wax ka heli karto marka dadkii jiri lahaa waxay u baahan yihiin markaas oo kale ay noqdaan dad la soo xulo meesha lagu jiri lahaa meelihii laga kala fakaro mataqaanaa qalabka la isticmaali lahaa kaameradii iyo wixii editinka ruuxiisii dad dhammaystiran lahay marka waa la ii keenay laakiin uun weli nasiib daro maana samayn waxaanse badanaa xoog saari jirnay barnaamijyadkaas live-ka ah oo dadka hortooda ka jilayo waqtiga aad wax curinta jeceshahay ama aad ugu badanaa aad wax curiso waa waqtigee marka aan kaligay ahay waxaan jeclahay marka aan rabo inaan wax sameeyo ama aan riwaayada kale ka fikiro inaan kaligay meel fadhiisto badanaa waxaan aadi jiray uganda kale waxay leedahay bijaj meel iska cagaar ah intaan iska tagan meel kaligay fadhiisto warqadii qalinkayga qaato aan badanaa barnaamijka sameyn jiray inta kale adoo marka wixii aad ka fikiri uun kadib waad fadhiisanay waqti qaadanay wax kastoo waqti qaataana tayadu mar kastoo waqtigu ku bato oo waqtiga aad u fikirto oo ku bataa waxay badan keenay in tayadu badato marka qaartaan soo sameeyay aniga waxay jireen maxamed waa badan tahay baashan dhowr saac ay qaadanay naga yaray waqtigeeda badanay maxamed waqtigeeda badanay baashan riwaayadan dhowr saac ay qaadanay naga yaray ana haddana yareynaya ayaan haddana waxaan sameeyay jiray nuxurkii riwaayadana weli aad hay u jiray aad u badan waa gartay maxamed marka shaqo sidan weyn oo kale la qabanayo bedelkeedana caqabad ayaa yimaada maxaa caqabad ah oo aad kala kulantay intii hawshan ku jirtay horta cabdirsaaqow horta ani maxamed ahaan marka la yiraahdo hala curiyo xataa waxaan aaminsanahay dil film oo kale la sameeyo riwaayad waa la dhihi karaa laakiin filmna waxay u baahan tahay in meelihii la kala duwo anaga laakiin barnaamij live stage oo dadka fadhiyaan un baan ku jiray meesha ma dhaana dhaafay marka waxaan aaminsanahay haddii la helo taakuladii iyo qalabkii wixii la baahnaa iyo kaameradii iyo dadka la rabay hal qof waxma samayn karo laakiin haddii la helo wixii dhammaystir lahaa xataa in la samayn karo filmaan
ani maxamed ahaan way ii fududahay wax la curiyo wax walba yihiin xataa tala inaan ka dhiibto qaabka loo sameyn lahaa iyo sida wax soo gelin lahaayeen director ahaan waxaad moodaa in aad ugu fududahay marka waxaa caqabadda waxay tahay inaan la helayn dad u baahneed waxaad u baahan tahay qof ku tababar adiga ruuxaada wixii aad leedo dabiiciga ah kasoo koow waxaad u baahan tahay dad aad raacdid oo wax ku hagoog kira markaad rabto inaad filan samaysaan u sameey waxaasoo kale waa qalad taas ka fogow meel aan wax ka xigano oo wax ka raacna ma jirin mana jirto dawlad ama nidaam dawli ah oo aan raacno ama tababar ama waxna siinay ma jiro laakiin kaliya waxaan raacnay waxay ahayd wixii dabiiciga ahaa ee maskaxiyan oo ilaahay xaggiisa ka yimid laakiin haddana waxaa jira waxyaabo kale oo dunidoo kale marka film la sameynayo qaabka loo sameeyo barnaamijyaadkan yiraahdo saxaafadda kale adigu waa taqaanaa documentary filmska kale marka la sameynayo qaabka wax la soo saaro wixii inaadan wixii aysan jirin cilmi fara badan iyo taakula fara badan iyo qalab wuxuu u baahan tahay maalna waa loo baahan yahay qalabna waa loo baahan yahay marka labadaas ayaa ahaa wixii ugu badnaa ee caqabadaha